kusoo dhawow barnaamijka xogsiye xog sugan ayaad ka helaysaa oo xaqiiqada taabanaya. maxaa ka jira xirnaashiyaha dawladda hoose ee degmada Galdogob? waraysiyo uu xogsiye la yeeshay labada dhinac ayaa ugu dambeyn ku soo baxday sidan. horaantii bisha labaad ee sanadkan ayay ahayd markii degmada Galdogob gudoomiye loogu soo magacaabay digreeta madaxweyne taas oo ay sababtay khilaafyo soo wajahay dhisidda konsultiga ama golaha deegaanka degmada. munaasabad heer gobol ay daadihinaysay oo uu goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka ayuu xilka kula wareegay gudoomiyaha kumeel gaarka degmada. dastuurka qodobkiisa dhigaya kumeel gaarnimada ayaa xadidaya xilka heerkiisa oo ay ku qiyaaseen 45 casho ama bil iyo 15 bari. waxayna sharci yaqaanada wax ka qoray dastuurka ay xeerinayaan in haddii ay la soo darasto xaalad aan lagu qaban karin doorashada uu xilka sidaa ku sii hayn doono gudoomiyahaasi kumeel gaarka. haddaan duruuf kala iman dawladdu inay konsol dhisto iyaday waxay u tahay mabaadii halka sano ay jirtay degmadii tobnaad bay dhistay. 12 Abriil ee bishan aynu ku jirno ayaa ciidamo careysan ay la wareegeen xarunta dawladda hoose ee degmada iyo barkantaroolada degmada Galdogob. dhanka kale maamulka degmada Galdogob ayaa isaguna arrinkaasi ku sheegay inay tahay arrin loogu soo duulay qofnimadiisa. laakiin saaka lagu soo qaaday dawladda hoose ee degmada Galdogob halka oo ciidan hubeysan ay ku soo duuleen oo jeedkeedii laga soo galayay ay gooyeen kadibna ay degeen oo hub la hor fariisteen kadibna ganjeelkii laga galayay xarunta ay qof la saareen oo haddana ciidan la hor fariisteen. saaka markii aan shaqada ku soo tirmaaday waa soo maray jidka markuu xirnaa gaarigii waa iska dhigay banaankan iska dhigay waa soo lugeeyay waa soo maray oo tagay waa la hadlay dad la garanaya ahaayeen maxaa qorsheenu yahay maxaa dhiboo jira waan weydiiyey waxba ima sheegin dad macnaha la soo khalday oo meesha la keenay oo lagu soo daadiyey bay ahaayeen waxa ay doonayaan aan garanayn. dhanka kale xogsiye oo isku dayaya inuu ka helo xogo saxa ciidamada 12 bishan ee sanada 2020 la wareegay dawladda hoose iyo barkantaroolada degmada waxa uu la xiriiray afayeen u hadlay ciidankaas waxa uuna ka wareystay sababaha ku kaliftay in ciidankaasi ay qabsadaan. bismillahir rahmanir rahim sababta noo kaliftay inaan xaruntii dawladda hoose ee degmada Galdogob iyo guud ahaan kontaroolada magaalada soo gala magaalada Galdogob soo gala waxa weeye markii maamulkii la soo magacaabay digreetada madaxweyne dinu soo magacaabay markii runtii bulshada deegaanka iyo guud ahaan degmada Galdogob ay runtii fahmi waayeen oo ah in maamulkii kumeel gaarka ahaa ee degmada Galdogob uu ka shaqeyn waayay in la soo dhiso golihii deegaanka degmada Galdogob. waxaan ku sheegayaa saxafi degmada Galdogob oo ka mid ah degmooyinkii waaweynka ama degmooyinkii hore ee dowladda Soomaaliya haddeerna degmada afraad ee guud ahaan ugu weyn Puntland. muddo badan maamulkeedii ma dhisnayn shacabka deegaanka iyo guud ahaan reer Galdogob waxay diyaar u ahaayeen in la dhiso golihii deegaanka degmada Galdogob. dabadeedna waxaa dhacday in isqabsi beelaha dhexdooda ah ee dowladda xalin isla markaasna dowladda soo magacaawday digreeto gudoomiye kumeel gaar ah gudoomiyihii kumeel gaarka ah waqtigiisa wuxuu 40 casho
45 cashana gudoomiyaha kama shaqeyn inuu golaha deegaanka u dhiso isla markaasna dadka shacabka ee degan halkaas ay matalaad dhab ay helaan saas daraadeed shacabka reer Galdogob iyo bulshada reer Galdogob waxay isku dayeen in la hadlaan gudoomiyaha runtii gudoomiyaha arintaasi uu ka dhabar adeegay waa tahay ma la oran karaa mudane xilka uu ku fadhiyo gudoomiyaha marka la eego dastuur ahaan kumeel gaarnimadu waa 45 casho sida aad sheegteen oo wada aaminsan tihiin laakiin waxa la soo diristay xaalad aan lagu qaban karin doorashada oo ah xanuunkan coronavirus wasaaradda arrimaha gudahana ay ku dhawaaqday in dib loo dhigi doono kala fadhiyada iyo maamul sameynta degmooyinka ma la oran karaa marka arintaas darteed uu sii hayn karaa xilka gudoomiyaha safi gudoomiyaha coronavirus oo hadda bishii ugu dambeysay ama asbuucii ugu dambeysay Soomaaliya buu xoogaa soo gaaray ka hor gudoomiyaha diyaar u muusan ahayn inuu doorasho qabto waa tahay waa lagu xallin karaa wada hadal aad la yeelataan gudoomiyaha waxay isku dayayaan in ay meesha ay sii joogaan sidaas oo qorsheedu yahay laakiin wada hadal waa lagu dhameyn karaa laguma dhameyn karo inaad ciidan ahaan u qabsataan maxaad wada hadal ula sameyn weydeen gudoomiyaha runtii saad maqashay gudoomiyaha kumeel gaarka degmada Galdogob Abdulqaadir Khalifa Xaashi isagoo la hadlay dacwada maxalliga Galdogob wuxuu sheegay asbuucii la soo dhaafay in dikratada aysan waqti ku qormeen xiriir Galdogob aan la sameeyay gudoomiyaha diyaar uma ahan inuu doorasho qabto arintaasna aad uga xagajiidiya uu yaraan u rabaa sanad kale si joogo meesha ما يمنهين برضا قفرت يو بريق بلدان كده على منهين إذا كلا عيدا كفدرال كا هرم عاديو إلى هالمعلن منهين وحنا هاي تدخي دجان كا نبان هاي أرنتان كدي شعب كريه قلدهم وإني أقوليين دور أقوليين لكن في هذا وحكي على هدي أو حلقة بدرين runtii degmada Galdogob meel dheer iyo xeel dheer baa laga raadin doonaa waxaan leenahay dowladda Puntland waxaan leenahay buuhoodle waa gobol Galdogobna kama weyna gobolka Cayn baa loo magacaabay Karkaar waa qardho Galdogob kama weyna gobol baa loo magacaabay Highland meel dhaho deegaan la dhaho dhahar baa magaalo madax u ah حتى دار كميس ميدنا هاين دقموين كهري يا أصل كاين وقبل كردفو باجرة ميل ده بركالوي idinku marka ma waxaad u ordaysaan inaad gobol qaadataan oo gobol la idin siiyo mise waxa jira dhibaatooyin kale oo aad ku qabtaan maamulka kumeel gaarka hadana shacabka reer Galdogob iyo ciidanka hadda godowsan la wareegay degmada Galdogob xaruntii dawladda hoose iyo control magaalada soo gola tabashada aan ka qabno Puntland guud ahaan tabashada soo koobi karo ma ahan waxaan leenahay dawladda Galdogob ay leedahay Galdogob gobolkeeda oo ogolaato Galdogob horumarkeeda oo ogolaato waxaan ognahay mashaariicda dawladda Puntland ay ka fuliso guud ahaan deegaanada Puntland Galdogob waxay ka leedahay wax yar weey waa boqolkii hal lagu qiyaasi karo xataa halka magaalooyin kale ay mashaariic helaan wadooyin ay helaan ceelal ay helaan iskoolaad ay helaan tusaalahan degmooyinka tuulooyinka hoos yimaada degmada Galdogob sida Qodgaashaan Xero Jaale Dalsan Isqanbuus Nugaalgelin dhammaantood xataa MCH dawladda Puntland kama dhisin Galdogobna horumarka jira dawladda ka fadhiyo ugu dambeyn afhayeenku waxa uu ku soo gabagabeeyay inuu diyaar u yahay wada hadal isla markaana uu ka kici karo hadii wada hadal dhaba la yeesho odayaasha dhaqanka degmada Galdogob baa soo xiriiray waxaan u cadeynay inaan wada hadal diyaar u nahay ciidamadeena saddex barood bay ku sugan yihiin xarun dawladda hoose ee Galdogob iyo laba control magaalada Galdogob laga soo galo laba control waaweyn magaalada bay ku sugan yihiin ciidanku wax dhibaato kuma hayaan deegaanka kaliya ciidanku wuxuu adkeysan waayeen dhibaatada
وما داري قلدوب لو هاي runtii markii dambana ay mataqaanaa ka kaceen